بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد halkan waxaan ku jirnay oo weli aan inoo socda barnaamijkanaga ahaa bahweynta naafada iyo Soomaali xiriirka ka dhaxeeya maantii dhaweyd xoogoo way iga yara dheeraatay ma doonin inaan saa u dheereeyo maxaa yeelay in hal saac way adag tahay qof inuu inta u fariisto video ama magaciisa inuu daawado u dhegeysto way adag tahay marka weli martan baan ogaaday mar aan nin ayaan ku eri bal ii soo fiir markaas wuxuu igu yidhi 20 daqiiqaan dhegeystay inta kalena markaan dhegeystay waan yaro mashquulsana markaasaan arkay in macnaha ay hal saac markaasaan si fiican ugu baraarugay hal saac inay adag tahay inaan dhegeysto marka saddex qodob baan ballan qaaday inaan macnaha wadi doono horta ogow waxaan aan doonayay inaan taabto waa wax 40 sano aan waxa weeyaan aan fiirinayo waa wax 40 sano maskaxdayda aan ku duubay oo Soomaali aan ka arkay waxyaabaha ka dhaxeeya iyo xiriirka ka dhaxeeya ururka naafada 40 sano ma garanaysaa marka hal maalin iyo laba fadhi iyo saddex fadhi in lagu soo dhameeyo waa adag tahay marka waxaan rabaa inta macnaha xoogaa mid walba in yar ka taabto marka kadib wixii kale aan bahweynta kale naafada aan u daayo hadii la yiraahdo midda kale waxaan waa revolution waa kacaankan wuu soconayaa ilaa waxa aan doonayna aan Soomaali ka helno insha Allah wax istaagay ma garanaysaa marka kii hore maanta aan duubay ma raba in aan maanta yara raaciyo oo 30 daqiiqo wax ka yar aan ku soo ekay insha Allah waanigi bisinkii iyo xamdalada ku soo bilowday wixii aan bisin magaca Ilaahay lagu bilaaban iyo xamdaladana baraka malaha Ilaahay ha noo barakeeyaan leh Ilaahay ha naga yeelo kuwa qowlkiisa ku sifooba ee ahaa waqulu qawlan sadiidan yuslih lakum a'maalakum Ilaahay ha naga yeelo kuwa hadalkiisa macnaha ku raaca oo ku hadla hadal sawaab ha ku hadlina hadal ma la yacni oo sida xoolaha kale ha u bacaadhiya wax dadka adigana ku anfacaya dadkana anfacaya ku hadal Ilaahay idinka haddaan wajiganaga banaanka soo dhignay waxaan Ilaahay ka filayaa hadalkanaga inuu noqdo min nacfi leh oo dadkana anfaca annagana anfaca insha Allah annagoon cidna ku xadgudbeen niyadna noo wanaagsan tahay Ilaahay dartiina ay naga tahay ma garanaysaa marka aan raaciyo taydii marka aayadii baan hadii in yar baan raacinayaa markaas intaasaan maanta ku soo ekeenayna oo weli waxaan taaganahay xiriirka ka dhaxeeya ururka naafada bahweynta naafada iyo Soomaali marka walaal mawduuca maanta aan halkan kaga hadlayno waa mawduucaas hadii macnaha waxyaabo kale ay raadinayso insha Allah waa fasaxan tahay hadii kale waan la joogay oo aad tani ka hayso inaad dhegeysato ururka naafada iyo hawlahooda iyo waan la joogi kartaa إلهي آياتي سوحكولي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم قال يرسل برميو يسن قولة قولة كلا يريسن أو يسن محايل وحان لغايا باكوة لا يريسن يا إني كفل لبديهين كو يريسن سيدو كالو حير الدمرنا دمر كلا يسن أو يريسن وحان لغايا دمر كلا يريسن يا إني كفل لبديهين كو يريسن إلهي آياتي سوى وحير ولا تلمزوا أنفسكم نفتينها عيبينيا oo ay la mid tahay macnaha hadii aad naf walaalkaaga caybayso ama caydo Ilaahay agtiisa waad daalim baad tahay waad ka caayan tahay ma fahamto waad ka caybaysan tahay macdaalku waxay la mid tahay marka adigoo naftaadi caybayn bay la mid tahay dad qof walaalka naftiisa aad hadal iyo wuxuu rabin aad ku durto oo aad ku caybayso oo intiisa aad ugu yarto ma garanaysaa wala tanabazu bil alqaabi ha isugu yeerina isugu yeerina naanays yaalo xun iyo naanays wanaagsan xataa hadii wanaagsan tahay oo qofka raali ka ahin xumaantii galaysaa meeshaas aan yar bidhaamay hadii qofku uu curyaan yahay ama uu magaciisa yahay taariif hadaad ka wado ka soo qaad mesela aadan baa lagu aadanku dadka ma garanayaan aadana badan baa jira adiga in ayahaygi iyo wax kale oo ugu taariifisay iyo qabiil iyo arrimaha kale jira waxa la mid ah maanta hadaan qabiil soo hadal dadka xajiin baa ku wada kici وتي إلهي وقرأ إن إسكو تعريفيه وإلهي هو أبوري تدكو إني معناه سمت إسكو أقوم صلاة إني أحاطه بعد تدل الصلاة هذا قالوا الريه بالله تدخل إن حجين بقوة كعي حاجة كلا إياه وحدا نقول قبيالتنا هيرك يدري هيرك يقصر مري قبيالتنا هيرك يقصر إياه مري
arrimaha cajiibka la yaabay ka mid tahay qabyaaladdan heerkii ugu sarreeyey ee ugu xumaa ee ilaahay macnaha ma garanaysaa qaabtiisa lagula kulmayay heerkii ugu sarreeyeyba maray yaa qabiilka marka magaciisa soo qaada tii ilaahay ogala tacriifinta in laisku aqoonsado markaa soo xajiin baa ku wada kici miduu ilaahay diidana ilay iyo dhagood iyo jiis iyo walbasaas iyo kiilugta waxaysnaa tii uusa ilaahay ogolayn ilaahay kugu caroonayana waa lagu faanayaa oo markaa tirahdo qofka iga daa maalmada waxaan ku niyo hooyaday aadan bay bixisay aadan igu yar markaas ilaahay baa saa ku galay maxaa uga cararaysaa war ilaahay saa igal ilaahay ugu yarta ma ogola anna ma ogeli ma fahamta adeed dan kuu tahay marka haddii aad qaadato walaa talmizuu anfusakum baa ku qabanaysa marka aad qof walaalka wuxuu sarrimin aad ugu yarta aad ku ceebaysa intiisa adigana xag allaad ka ceebaysan tahay xag adaad ka liisan tahay xag allaad ka dulaysan tahay ma garanaysaa naanestuna waa saas marka laakiin waa la ogol yahay ilaahayna wuu ogol annagana waan ogolna xaqiiqatan haddaad tiraahda aadan dad aadana badan ay jiraan oo aad doonaysa in ayahina aadan garanayn aadankii curyaanka iyo aadankii jiiska ilaahayna waa ogol yahay walaa waa tacriif aadan inaad ku tacriifiso oo tacriif ahaan u isticmaasho ku bayaaniso waa la ogol yahay laakiin inaad tasmiic qofkii oga dhigto aad maalin walba ugu yarta abeljiis abelcuryaan taas lama ogola midaasuu mid daliidan yahay walaa tanaabazuu bilalqaabi ha isku tutuurin naanaysaalo xun bi'sa alismu ismi waa baas leh alfusuuqu waa isminimaas magacnimadaas alfusuuq waa almaqsuusu bidami waa alfusuuqu waa faasiqnimo inuu qofka qaato bacda aliimaani xaalay ahaato faasiqnimadaas adoo iimaana adoo muslim adoo magaciisa inaad haddan xumaan aad qaadato magaceeda ayaa ilaahay agtiisa ka baas leh xumaan inaad qaadato waxyaabaha hadda macnaha waxyaabaha ixsaan yarida waan ka hadli doonaa insha allah macnaha waxaan rabaa inaan si loo fahmo inaan mawduuc bacda almawduuc haddana marka mawduuca laftiisa inaan kala dhigo aan hadalka sida badoo kale aan u dhex dabaalan ayaan rabaa mogta waman lam yustub buu ilaahay yidhi fa ulaa'ika hum daalimuun qofkii aan toobad keenin qofkii aan arrintaas aan ka toobad keenin ee xumaha ah ilaahay wuxuu yidhi daalimiinta ayay ka mid yihiin midda kale aan doonayo insha allah inaan taabto waxaa ka mid ah ninba maalud wuxuu ugu yidhi wixii waa isku qaadqaaday oo waxaad ka dhigtay culimadii iyo dadkii oo dhan ma garanaysaa innaga arrintan horta nimayo dhibkaan haysta soomaali oo dhan aan nagu hayso ama culimo ha ahaadaan ama dowlad ha ahaadaan ama shacbi ha ahaadaan maxaa yeelay meelna wax oo qalbi wanaagsan kalamaana kulmin mideeda kale culimada horta in la taabtan looma ogola culimada in xaggeeda la aado meel la aadaaba badan ba ilaahay badiyey ma fahamta wixii la nasihi lahaa wixii oo laga hadli lahaabaa badan marka culimadu iimaankanagii weeye waa tii sababta islaamnimada iyo haddii aan naar ilaahay kaga nabadgelayno uu sababta noogu ah marka culimada in la duro ama magaciisa ama la cambaareeyo taas wax fiican maaha horumarna laguma gaaro runtii waxaa waaye laakiin waa bannaanta xoogo ma garanaysaa in la yaro saxo la yaro saxo oo liyaabo culima ururaal idinkiisa hagaajiya ma garanaysaa walaalayaal dad islaamaad tihiin in badan aad masaajid ku tukanayseen muxaadarooyin kaga qaybgelayseen khudbad jimca ka qaybgelayseen weli ma aragteen masaajid lagaga hadlaayo oo si caama in loo hadlo mooyaane oo la leeyahay si khaas ah dadkaan si khaas u baahan yihin in loo xuso dadka naafada ah dadka naafada iyadoo laga hadlay maartay hadalkayga ha qaadan carabta waxay tiraa atafkiiru naqdi marka wax lagu sheego ama kuwaan waxay yidhahan critical thinking baa la dhahaa critical thinking waa markii wax lagu sheego wixii ha iskala boodin maskaxdaada u isticmaal waxan ma jiraan si khaasa u fiirfiiri bal adiga walaalo cimri baa ilaahay ku gaarsiiyey intaasaad jameeca iyo muxaadaro iyo khudba iyo kaga qaybgelaysay mawduuc lagu soo qaatay dadka naafada ma aragtay inaan meeshaan ku dulmannahay halkaas ka fahmaysaa markaad soo weydo ayaad fahmaysaa halkaas aan kaga dulmannahay xataa culimada xaggeeda xataa inaan macnaha aan ka waxaysannahay ma garanaysaa ما أنتون والله الله ما أنتون مع مجيشة وحول موضوع والبالغ الله لكن مركل لي مساكين عن قبشة إذا كان نافذ عن قبشة يودل مي هنا سيده الله دامه حاجة لما هذا يا وبعدنا نصيب بليه ما دك سيده أغنى متكلم معلم ما حيركي نين إيش
مساجد ayuu mudaris ka ahaa waa masaajidka mudaris kama lagsiisu mudaris yani caalim oo sheekh ahaa marka nin curyaan ku haystaa maad hadii la ku sameeyahay lugaha ma fidist عبد يقول لك عير الله ما لغها في معناها ما لها لقى سجود محكمة مضحها كعمها يجلبها يلوها أو معناها فرها أو مجانا فرها أو ساوي حاجة قبل مركز عليه لغها هذا مركز سجود سهبلو وي لا لابناين ما حد فرها ما حد ساوي به ويدي سن مركز واحد هاي هذا علمي أو برطي ninka inuu curiyaan aan ku fahmi weyn ninka inuu curiyaan naafiya oo lugahan aysan fidsameyn hadda ana iraan noqto meelaha aan maanta dhulka hadlayay sida ii sheeg oo Soomaalida meelaha aysan in nabaha yaraatee uma baxsana ma fahansana dad naafa ah oo walaalahooda oo gacan qabasho u baahan oo in la fiiriyo u baahan inay macnaha ku hoos nool yihiinba ma fahansana فهم كانوا وحكسوا بالعبانية دول بنت اللي جاندك وحيقان أقوم تل معناه بعناه من الخيال فدي نين بهوين تكمل عن أركي وولي بقول جاب تصعد وولي جاب أنا برام كوكو تمي نين كمان بخيال سكاك فرستي صلاة دان الوقت الدمي صلاة وحياة صلاة مغرب عهد وأنا الوقت الدمي صلاة المغرب مساجد أكتر نضع ولي أد أنه وقف وجين أد نقوله مساجد سكير حافظ كل أحياله لكن جرندو دير tahay oo adu mareys in liid culaaminta ka ilaaliyo sokorin taasi aan lawadeen aad soo iska soo gurgurtay moogta waxaan gurgurashadaas magaciisigiyo ilaahay baa ya qada awood tii ilaahay waata dib kuma hayso iska gurgurtay dibna way ku haysaa dibna kuma hayso xaga aragtida waa dib laakiin isaga waa janjal iska fuulay anaga janjal iska qotonsaday masaajidka ku tukanay markii salaada laga baxayna wadaad baa meeshii garanaysaa yaa kitaab ku galay الكتاب كني هذا ما حسس كتابه لا كتاب هذا معناه الكتاب مقال كتاب كذا ماضي 20 قلت هذه تصير هو كتاب ما أنت دم يا هذا المخايد دي سيدا كان يعني سواء هذه موت ممكن وفدا كش السنة دي دول بدول سورة ساش مر بيشين بدول سورة ساش دني كمان كان معك السؤال هذا شو صار في كش كسر عيل الشيخ حالي موت هي ولكن هو مرات كذا أنا وقت كل مسي ودي المولار هنا مسوارات وكيل رايح عمرك وعدد المديرتي هني عدد قرابتي هني أو سكوار الموت مركا مسي ودي مركا أوكي واحد مركا واسكلي سنة يدي ما هين وما كوي مركا ما أنت هي معها هنا كوي وعكي هنا دقوي مركا سوي عقيل المساجد كذا ساعة بس وروح هذا هو على اسمه هو كان شيخ نويس نعرض ملان تقوى دادان وي مع شيخ زاوده بيحو وسي ودي او مثال حكي انتو جرجران تاغاي حتى ما غران واي walaalka curiyaan oo wiljeer wata tanba waad taagtay mid jiftay yar oo wiljeer ku soo fuula xataa yuu garan waayaan ku yirin ma meesha dogan dadka waxma ma garanayaan wasay soo garanay cilmigu uu kutubaha ku akhristay oo waxa soo magaciisa darajo ku garan waay balniyo jaranjaraan jifta xataa saa u saar حتى مقرن يعني كل يوم حتى ولا سنة سمعنا وحلاس يجوا اسكميده عفوا ولا صار مثل لكن والفهم يسمى معناه الفهم marka عليها الصاص واي حق علماء لفتها وحواي وحبا جرا oo isha lama fahansana ma garat xagga dawladana dawad garanaysan dawlad dadku waa culimo dawlad iyo shacab waa marka inkastoo inta haddana waa kala qaadatay dawladdii systemka laheedna dee iyadna waa rabaa inaan wax dheer kaga hadlo oo waxaan kusoo gabagabeynayaa hataa waxaan doonayna haddaan loo samaynin haddii alle ku same leeyahay waxaan dhihi doonaa yaan kusoo gabagabeynayaa insha allah mawduucyada soo socda ilan waxaan mawduucan soo soconaya mogta marka waayo revolution waa kacaankaas waa la wadayaa bis hadda dad badan baa ila soo xiriiray runtii aniga waxaan lahaa oo 2 fadhi 3 fadhi aad ka dhigatid laakiin shakada inay ugu sii ballaartaan ka baqay dad badan baa ila soo xiriiray aad ugu boga baaweynta naafada ka mid ah dad waaweyn akhyaara ka mid ah maalin xataa nin madaxda hore Soomaaliya yani meel kula kulmay oo yaan la soo qaaday magaranaysa aad buu ugu bogay marka xagga dawladdii iyo Soomaaliya ahayd lafteedu waa kale wax oo aqoonsi ah kamaan urka naafada iyo waxaas bira la gada iyo
والجر لو ايبي لعق يروح تحلصي يهدى لعق ساعه وعا ما تري انا waxaan u baahannahay waxa waaye systemkii mana lagu xusay dastuurkii mana lagu xusay wasaarad u adeegta dadka naafada ah mana loo sameeyey waxaas oo dhan waan soo tixi doonaa waxa aan ku dadka naafada ah maanta anaa u hadlaya afkoodii waan ku hadlaya waxaan u baahannahay aan ku raali noqonayno haddii aan la yidhaahdo waan soo tixi doonaa waan tixi doonaa dowladdana wax aqoonsi ah kamaanu helin weligeenba soomaali haddaan ma fahamta shacabweynihii soomaa shacabweynihii dawataan ka soo hadlayayba afkoodii baan nabad laga helin waxtarka maynaan helin xamar waxaan garanaya iyadoo caasiyadii iyo laga dejiyo iyo basaska meesha haddii alle kuusama leeyahay waddamada dariska iyo aan saa loo fiirinin iyo markuu qofkii curyaanka iyo lacag maayo xataa laga dejiyo ma garanaysaa waxaa la yidhahdaa oo aan rabaa inaan aan hadda clipkan yar aan kusoo gabagabeeyey oo mawduucanagii hore xoogaa biyo raacinta aan uga dhigayay ilmuhu waxaan xasuustaa ishaad berigii aan macnaha aan meesha aan lahaa meel xero curyaamintan ku jiray ayaa macnaha meelna inaynan macnaha cid walba waa naga cararaysa macnaha cid walba nama curyaan ama xag u riix nin waxaa jira kuwa meesha curyaamin way ku magacawneed markii horena waa loo sameeyey laakiin dad cagaa qabaa yaa oo xataa qaar madax ay dhaleen baa meesha wax ka baran jiray oo aniga ilmaha yar baan ka mid ahay laakiin dad waaweyn wax bartay baa jira oo hadda qaar xataa dhaqaatiira qaar professor ah hadda waxaan garanayaa nin professor ah oo weliba hadda soomaaliya oo dhan wada taqaano oo magac leh oo professornimadaasi aqoontaas magac ku yeeshay meeshaasu yuu ku baraaray meeshaas wey meesha taariikhdiisa waxbarashada aqoontiisa ay kasoo bilaabatay iyadoo dhowr meel laga wareysanaya arkay taariikhda bal hebel waa iyo walaalo noo sheeg baa la dhihi moogta wuu ka soo hadlay meel heblaan ku dhashay xerada markuu marayo wuu ka boodaa marka ayaalan la yaabay niyo waa lagu fiirsanaa niyo body languagekaada qaabkaad u hadlaysid waxoo dhan waxaad ka wado kulli waa la fahmaa iska hadal adi wuu ka soo sheekeynaa meeshuu maraayo ninka professorka laakiin xeradii markuu maraayo maarata curyaamiinta yuu ka boodaa isagoo curyaan ma aha macnaha kuwii wuxuu cagaha qabay macnaha way badnaayeen dadba kuwa cagaha qabaaba anaga naga badnaa laakiin xerada curyaaminta lagu magac daray markii la kuma hebel waa kuma uu soo warama magaciisa nin noocaas ana magaalo heblan ku dhashay saas uu ahay magaciisa xerada marka boodaa markaas wuxuu u soo boodaa qurbihii iyo reer galbeedkii yurub iyo maraykan meesha ahaataba yaa ma garanaysaa wuu soo aadaa gaaladii ku faana markii heblan jaamacad heblan ka soo baxay magaciisa shahaad heblan soo qaatay kii xataa shuurada iyo soorta nala soo cunay digirta aan waqti kiibaa xataa naga cararay oo wuxuu diidayaa in la yidhaahdo waa shacabka ka hadlaya macnaha wuxuu diidayaa curyaamiinu wax la soo cunay inuu meesha ka sheego diidaya uu ka cararaya macnaha uu ka faanaya curyaamiinu wax la soo cunay ma garanaysaa annaga meel walbaba niyo marka la fiiriyo culimo hadda hadalkaasi jawaab ha ku ahaato ninkii soo weydiiyo culimo shacab dowlad meel walba waan ka waxaysanaa ilmuhu waxaa leeyahay 3 jeer bay ooyaan ilmuhu 3 jeer oohin walbana 3daas meel ku keenaysaa mar waxay gacanta ku haysteen haddaad ka qaado ka farmaynus oo ooyaan garanaysaa ilaa aad wixii u soo celisana ma aamusayaan maxaa yeelay wax uu isi siinayo isaga iska lahaa ayaad ka qaatay wixii markaa u soo celisan buu aamusaya mar wuu xanuunsan hadduu xanuunsan uu ooyi muxuu u baahan in la cilaajiyo oo la tabiibo oo la dhaawo ma garanaysa dhaawo dirtaa taqaanin maaha doogo waxay tiri waa anaga koonfureedka daawada waxaa la yidhahdaa dawada iyo cilaajinta ma garanaysa taxliisha iyo tufta waxaasaa la quraan ku akrinta qofka dadka loogu tago ayaa daawad la yidhahdaa sheekhow tiri gabar sheekhow waxbaa iska garan lahaye inaa daawadahan roy markaasuu yidhi oo soo nin kuma qabo markaasay tiri nin wuu qabaa markaasuu nin ku qabo ku dhaawo markaasuu tiri waxba dhaawi meesha kale isaga la aaday waqtiyada laakiin dawi ka wada naatu ninku ku qabo ku dhaawi kaada marka meesha la aadina
هذا ممكن ولا كلا قوي ما كرهسا marka ilmuhu hadduu xanuunsadaan wax ilaajood ah oo daweeyo u baahan yaa ma haddaan macnaha aan lala tacaalin uu iska ooyaya ma aamusay marka saddexaadna waxa ilmaha hadduu arko inaad idan attention siin ka sii jeedaan oo dadkaas sheekaysanay isaga aan laga hadlayn soo fiirinayn magaciisa isna uu ooy wax xanuunsan buu iska dhigay ilaa xaggiisa aad soo fiiriso oo sii jeedkan uu kugu arko oo aad soo fiiriso iska ooyaya marka bahweyntan naafadana waa saas oo kale waxaa waaye iyaga ilmihii waaba dawoobeen oo waa loo soo jeestay wax la siiyo laakiin annaga saddexdii jeerba waa ooyeyna oohinta weligeen waa wadnaa waxaa weeyaan wixii ilaahay idinku kindhiibay baa haddii alla ku same leeyahay nalaga oo naxariistii iyo ixsaanka iyo magaciisigii iyo indikarbinina waad naga qaadateen numeeda soo celin ma garat waan xanuunsanay oo xanuunkiin haddii dadkaas xanuunsaday cilaajinta iyo wax u baahnaan cilaajinta doogow hooyada labada sano hore waa waddo meelahaasay la gugubaayay iyo la duduugayay maaha waa cilaajin daa'iman ah iyo dadkan u baahan yihin in yar xataa dhibic laguma siin gorojo yar xataa ma garanaysaa midda kalena waan laga sii jeestay sii jeedka yaaba kala ahba qofka dad xoogo is afgaran weydaan uu kaa tago uu kaa sii jeesto hadduu hal mar kusoo fiiri ogow rajaad leedahay ninkaas qofka inuu kuu soo noqo hal mar buu kusoo fiiri weli qalbigiisaad ku suntanta waxaa laga yaabaa inuu uu mar uu kuu soo noqdo rajaa weligeeda laakiin hadduu marna kusoo fiirin waayo ka war qofkii waxbaa idin kala gaaray dhabarku ku jeediyey wuu kaa dhaqaaqay marna waa kusoo fiirin waayo qofkaas rajo ma laha ama waa kugu adkaanaysaa inuu kuu soo noqdo laakiin hadduu hal mar kusoo jaleeco qofkii dhabarku intuu ku jeediyey meel dhex marku mara hal mar kusoo jaleeco rajaa leeda qofkaas meel fog kama jiro ogow annaga soomaali dhabarkeena jeedisay waxaa waaye in yarna nama soo jaleecin in yarna nama soo jaleecin tiibaa marka aan ka diidinaynaa waan ka hadlaynaa insha allah maantana kalibka annaga halkaasuu inoo joogayaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah